waxaynu halka ka sii wadaynaa oo sii fasiri doonaa haddii alla idmo maadii markii dhawaato aan ka sharqaminaynay odhanaysay waraabo urmoog iyo dad dareen moog wadkooda hortii ayay dhintaan iyagoo Soomaalidu inoo fasirayaan oo digniinna inagu siinayaan dareenku waxa uu yahay iyo waxay soo qaataan sheeko dhex martay baaqliga tukaha iyo xunshada ma hadlaan iyagu oo hadalladooda lama arkin laakiin ficilada ay sameeyaan ayay sheeko ka sameeyeen waxay yiraahdaan tuke ayaa la hadlay xunshadu ahaad caad weey wuxuu yiri xunshoy goorma wax dareentaa waxay tiri goorta qofku intuu wax qaato agtayda ku dhufto ayaan dareemaan carraabay tiri الله هذا ماذا حكى دفتنا حيث لا ماذا حكى دفته أما أوجد كلام ما حكى دفته كلكو قف وحصات تورا وحصات تورا يسوق قاعده كل كام من عرابت هذا قارمة أيضا حضر أنت هو يحون شيء نين كدي كدمع كل بقفك هذوك صوت دايما هذا كوكس هذا مقعبة كان ولاها توكا هذا مرسى أو فيرسو هو كتيره توكا سلوا دلوا عدك تاي عندنا توكا مثال الدري مثل بعض الدري حلقة يابا دور كيسنا وحل إن الشيء حلقة يابا أما إن الشيء جنبه حنشدنا وحلقة يابا بشي بدور حبين للدلو هذا دمادين الدشوا وحي أتكو تورتو عمل له عمل له لا كل كادون وحي قاري عرّيسه توكانا ما كانت صور دورتها هوادو كجرا قالوا نحكوا فالمرك هذا سي جيدا دا سو جيسته عربه dareenka noocaas ay feeyigada ah wala rabaa dareenkaagu soo jeedi waayo daceeb iyo calaf la'aan labadaba isku darsan doontaa waxa jira laba noole oo duurjoogta kamida oo midna la isku caayo midna la isku amaano waa dhurwaaga iyo libaaxa qofka markii la rabo in la caayo ruuxyo dhurwaaga aba la yiraahdaa kolka la rabo in la amaano hebel waa libaax baa la yiraahdaa labada noole maxaa kala duway maxaa loo kala xigtaysanaya tilmaamay leeyihiin dhurwaagu saddex tilmaamood ayuu leeyahay kow horta waa waxan guri weyn oo lafaha iyo meelaha raqdu taalo iyo waxa qashinka abu cunaayo xagga hunguriga uu ku baan yahay haddana waa wax qaylo badan oo cidiisa habeen iyo maalin waa la maqlaa muuda u bahayn ala maxaan ruwaayo muu ka maqlay bal yiraahdaa muuqiisana waa la arkaayo ciyaalada iyo haweenka iyo caruuruhu way arkaan soo meelaha ordaya dhurwaa sal lagu hayn saddexdaas sifo ayaana dulli ka dhigtay hadda sifooyinka yeelato oo markii hunguri laga sheekaynayna la yiraahdo hebel baa hunguri badan oo ala casho hadalkaaguna badan yahay oo meel kasta hadalkaagu taagan yahay muuqaaga iyo hadalkaagu ay bataan dadka waad ugu liidnaanaysaa sifooyinka dhurwaaga qaadanaysaa libaaxu saddex asagoon sifo leeyahay horta waqtiga ma cuno oo wuxuusan asagu shaqaysanin oo san dilanin ma cuno wuxuu sifaysan yahay midigtaadu waxay qaadato ama shaqaysataa maydha gaajada midigtaadu waxay xoogsato ayaa maydha gaajada oo magaabada hashaada ka rormay dhanaan kale taas ku sifaysan yahay midigtiisa iyo awoodiisa wuxuu ku shaqaysay buu cunaay waqti ma cuno waa midda koobaad midda labaad lama arko oo libaax in wax dilaya mooyeen iska socda sida loo arkaa way yar tahay manaciyo oo sanadkiiba hal mar ama laba koor baa laga ciidiisaba in la maqlo waliba midka wax dilaa asagu ma baciiba libaaxa ka aamusa iyo kaciga ka daran baa la yiraahdayo mar hadduu rabo in wax dilo ma bahadlaba saddexdaas shay buu ku sifaysan yahay waana sharaf inaad waxaad adu leedahay oo cunto oo cidna wax weydiisanin naftaada ku kalsoonaato oo aragtidaada iyo socodkaagu ba yaraada codkaaga iyo hadalkaaguna inay wax qiimo la noqdaan
saraf bay ku yeeshaa sheeko kale halka ka bixiyana waxay yiraahdeen duurjoogta shirtay kadibna shirkii waxa ka hadlay boqorka duurjoogta waa libaaxay wuxuu yiri yaa inaga maqan waxa la yiri intii kale way joogaane shinni baa cadhootay oo geedka saaran wuxuu yiri inteenaan bal u tagino inaan soo wareysaneen shinni maxay qabataa waxa la yiri shinnidu laba ficil bay leedahay ama laba shay bay leedahay koow horta malab macaan way samaysaa oo nacfigeeda lagama maarmo adduunyada dhanba de malabka wadaarteen oo waa qaali koow haddana way dagaal kulushahay oo miciyo waxay leedahay caadi ahayn haday weerar qaado waa la halaagsami labada ficil arno soo qaado yiri ama deen kare shay qofka hadduu labada nooc yahay waa dahab inaad qabowdahay lagu wada istaaga ma fiicna inaad inkaar qabto dadka laynasana ma fiicna waa inaad ficil la leedahay macaanna leedahay waxde dadku maaragtay oo soo raaci karaan inaad leedahay difaacna inaad leedahay la rabaa saama dhacday shinni waa la soo celiyay oo lagu soo daray noolihii shirka ka qayb qaadatay baa la dhoo daqsi ayaa yiri sida shinnida oo kale ma tawaysid anna lagu soo celiyay oo dadgeed buu fuulay waxa la yiri daqsi baa cadhooday boqorkii duurjoogtow daqsi ahaa bal inta soo cadh celinin balasana wuxuu qaban jiray waxa la yiri laba ficil buu leeyahay horta boogta wuu cunaa meesha boogaha iyo nabarrada iyo qashin waxaas maaragtay waxaas u fadhaa waa koow meelaha qashinka unbuuna joogaaye wax kaloo qabtay male qofka suusuubida ee fiican jirkiisa ma taabto suu u raadinaya hadduu meel boog iyo nabar ka waayo iskaga tegi meesha guriga u ahana waa meel un qashin yaallo qashin iyo waxa weeye meel xaar iyo qurin dhex yaallo warnaga daayiri wax xameelisa naga joogay dad noocaas jira waxa weeye meesha uu joogana untahay meel qashin iyo maalayacni iyo waxa weeye waxaan fiicneen lagu hayo wuxuu ku hadlayana wax un qashin oo quruna uu ku hadlay sida hadaan noqoto de saasa lagu tiri ninka daaya la markii la tirinayo ayuu baaldhay muxuu qaban jiray waa sidaas warnaga daaya ku dambay marka aduu sifooyinkaaga wanaaji wax jilicsanna iska dhigan oo lagu wada istaagin wax macaan oo hawada noqonte wala wada moodsane wax kharaadna ha noqon yaa lagu wada tufine dad wax macaan noqoto inta lagu wada moosaad waa lagu ciyaariba maanta kuwa ku darsan kana ku darsani saaqowga lama rabo wax kharaadna ha noqonin oo dadku ka kala cararin wuxuu dhahay bayna dalik labadaas u dhahay naftaadana la soco xisaabtan de adu isweydii adu wada hadal ee ka joogtaa horta noolaha halka jooga ee duurjoogta sida hadda loo qiimeeyo libaana taas loo qiimeeyo ruwaana halkaas uu jooga daqsina halkaas uu jooga baash leeyahdo shinnina halkaas ay joogtaa muwaafaqada iyo weerarka iyo shinni wada taqaana cid kaaga warbixin mayso daqsina waa taqaana oo kan hadda aan la keedinahay baasaada ku ximaatan ku hayno alla wuxuu qaban male marka aduu qiimahaaga haduleynina meel soo saar